إقرأ إقرأ كار هوي مع كار الله كبرك يا كار هوي هوي هاي يقول هو شو اسمه دمس أبوي ما كلهم سوكر بقولش وعيد ما صار يعني دعاء سنة وتنقل دعاء دعاء وارد واقبته أرين بايك كسوقش تنقل دعاء سنة وين دعاء سنة وقبته بايك كسوق يا سينة كسايك كسوق بقولسين نعي كسبت أنت سوق بدأ إذا متي هذا وانا على ما هو يميل حكومة لدي ونفي عم هراك هو دعاء هذا الدعاء اللي قام هذا هو دعاء مو ديدي يعني جاي لكن حالنا يسوع هو يسوق وبتشوت هذا أوجوبنا ما أنا سائلة تجنا تضرب نكوان نفي عم ويلا ما يرفع قصة صح مسي نكوس ولا كان وإمارة ولا تشرين نكاسنا ونفي عن أنا قصة سهمية يا نكاكوسة سهمية وسي هو إنسان أي سنة ثانية سوكوسي وسقبل هذي بيت هذا وانا هاي لكن من مرة يحولي كان ساعة سمحوا الوين صقور بتشوت قبل وقور تشوك أبغى تفجر هاي يقولوا موجودة لكن حلي أنا ها أنا حلي وحبرشان كنت أنا وحبرتها رواقونتي نعمل أنقور وحبرشة دمايسة وحبرشة كل ما محيطة heerna gaarsi aan gaaran meel ka soo bixiyaa rasmuud oo xilliga wax yar oo kooban ah ninkan kuugu duceeyay burso hada hooy ani ducam tii hore tii hore ku duceeyay tanna ku darso waa malab maya hooy waxaas ma jiraan xilli lisguur lisida gabadhay anigu ninkii hay ugu ceebayn ku siiyay ninka maxay ceebas maxaa hooy ninka xilli nin siin jirin waa la mooday xilli nin la isma siiyo ana nin markaan waqti sanayo madaaba ku taqaanad ku kala keensatin hada hooy ani madaan karkaysana adin ma warkaas ka daa ninkan waa ku siiyay walaalkaana waa la tasharaya ogow la soco warkaas anigu ninkan waa ku siiyay ninkan asaga waa imaanaya indhaha ku arkay anina reemays waa nin fiican ana la dhagayso ana ka soo fiiriyay meel walba ka fiiriyay waa nin fiican waa nin diin leh waa nin akhlaaq leh waana ku siiyay ninkan ka hadal lama ninkan waa imaanaya hadal ay soo bidi waayo namadikii waa umaleeyay arka fulan ninka waa u furay hadabka soogal waa furay imaano la waa qofba السلام عليكم هاي. وعليكم السلام. ساتة. في عن والدي الهديس. هاي حالة كور. الحمد لله ما شاء الله والله. هاي عيال كور. الحمد لله والدي واحد من المشرفين. هاي ما ندري واحد على صح. هاي ديار واي مركز. قبل يسوما هارنتي. قبل يوحد له أما كهذا له ما شفت قبل يسوي كوسي يومي يعني قداش إذا بابا كان ذكرت قبل عن دلاني. وصير شر كوسي وانت. كور ما كده مس. يا waxaas oo dhan ma jirto igama daba hadlay waatan gabadhi waa ku siiyay shalay iga soo doortay haddana waa ku siiyay la soo ariga kuma dhan ninkaan anigu waa ku siiyay waa sidan shalay ku siiyay maanta ninka fiican ma jiro عليكم السلام سليم hooyo ninkaan ku bar waan siiyay walaasha ka soo doortay خير شيء قصاد أيه لكن waa siiyay waa diidant mala diidi karto ara dhalay هاي عبتان كانوا كلهم دوقي ورتاه hooyo macaan noocan cabo waa ogtahay anigu waxaan leeyahay keeli waa ogtahay dooqayga rahayn لكن أنا أقول لجل الصومال هنيك hooyo hadda ila jeclaatay anigu hadda waxaan aniga dooqaygii ma وواح أن كل جل أو أنا جعلها هواي ودوقي كان أدي أنا كل الروا hooyo aniga hadda dooqaygii ma waxaana dooqayga ahayn sawi cabamaando وهذا تي ولا شيء ذا كويس تحمل واي مو بيجي إن دوقي هذا تها وأدي واي واحد aniga gabaraan dhalay weyn صح dooq kaba hadli karto anaa idinka idin dhalay anaa idin arrimi kara نبكي تسمعها وأغنى هاي هو يدينا تهاي واحد في عنا نقرب تها صح لكن نبكي جستو حتى هاي أيد أيام لنا نسوي كان مو أكتت يعني وين كان وحاول تخانا سكر أو تخانا وايو خوفك بن آدم كأه خوف بسوء يقول رحمة صح مركو لو ضد إسقور سدا مو أكتت وحسون نخدونه خوف البدوي عد جونا لو صباحا صح ورا وحلو يري جور وجوت موضوعه وحكون صباحا لخطأ marka hadhooti inta ay ku eeday lahayd hooyadeed ay ii dooqday soo ma fiicno in ayada dooqeeda la imaado waayno xal lahayd xabsiga ugu xun waa guur aan farxad lahaynin waayo qofka hadda guriga farxad aan ku haysanin waa xabsi waaye xabsiga baroon oo aad soo bixaysid soo adiga si hadda aad u diidan tahay aadan dooqaaga ahaynin adiga dooq ayaa leedahay qof walbana dooq isku dooq ma aha noqon karaan marka waxaa haboon waa ogahay inaan sida kula hadlo ma habooneen
laakiin in wax laisku sheegana waa fiican tahay inkastoo aa waalid ay tahay in laisba fahamsiiyana waa wax shay aada u muhiimsan maandhow duca qabe horta hadalkaa sheegto waa hadal fiican oo qiimo leh laakiin anigu waalid baan ahay waxalee ma lahayna wax hagaaji baan lahaa waa ognahay gabarina waxay ku fiican tahay ama inay guriga kugu jirto Sax. ama inay godkaaga jirto sax haddii meesha dooq iyo waxyaalo kala tahayna anigu waxaan isira gabadhaan adaa dhashay ninkaan siiso adigii walaalka haddaa saas ku raacsan tahayna sax dee hadda wixii waxaan dhaha maandhow ma aqaan ma ahan at least marka waxaa hadda waa inaan dhehe faraha ka qaadno dooqeeda u deyno ma ahan saasna ma ahan yani horta adiga waxaa ula talin lahayd waa ayada oo kale sax inta laakiin maku khasbi kartid waxaa dhihi lahayd wiilkan aan kula jeclaystay oo yacni fiir horta makuu haboon yahay mustaqbal ma la wadaagi kartaa sax marka at least waxaad muddaasii lahayd si ay isku bartaan sax guurkana qasab ma ahan sax ayadaa noolaanayso waa in ayada ay raalli ka tahay horta maandhow ma gabaraan dhalaan aniga maxay ahayd tool amarkeeda yeeli kara may laakiin ayadaa nolosheeda waaye waxaasna wax laisku dari jira waa wax hore waa laga soo tegay sax hadda nin walbo asiga haboon inuu guursado ee adhowti intii aysan ku eedi lahayd waxa haboon inay ayada la imaado waa hadda way aqlisaysatay gabar yar ma ahan sax ayadaa og meesha u haboon sax marka ina ayada aan ciqaab aan gelino guri aysan farxad ku lahaynin waa wax laga wanaagsan yahay waxa aad talinaysna waa farxadeedana hadday ku jirto inay ayada ay keensato qofka ay ku qanacsan tahay waxa ani ahaan ila haboon oo walaalkeeda ahaan ah in ayada aan sugno ama aan u talino inuu wiilkan uu la fiican yahay ee ayada hadday ogolaato aan ku darno aanan ku khasbin iyadii hooyo maba ogolo oo anaa ninkaan keenay anaanan la raba nin wanaagsan weeya hadday diida adna asaa u hadlayso hadha maandhow adaa ninkii reerka u weynaa ah wiilkaan jecelaho ku indhadoogsadana waa tahay bal adiga walaashaa fikir soo gaara aniga hadda waa iska aamusayahay wax kaloo hadal dhahayo mala hooyo hooyo macaan waxaan u arkaa in ayada choicekeeda aan u deeno sax marka aniga ahaanteeda waxaan ku maraxadkaana inaan ninkan aanan ku qasbin waa ku mahadsantihiin familka meesha saa wada dhan tihiin waxaan ku faraxsanahay in famil soomaali maanta go-aankaas oo kale ay qaataan maxaa yeelay soomaalida dhaqan waxay uleeyihiin in gabdhaha wiilal ayaga aqoon ay lahayn ama qof kaweyn in lagu daro marka waxaan ku faraxsanahay haddana isla qoys soomaali inay kasoo baxaan qof gabadhooda macnaha dooqeeda u daynayaan marka wax hor loo arga maahan waa ku faraxsanahay waa mahadsan tahay saad na fahamtay waxaana ku rajeynayaa inaad heshid gabar wanaagsan